Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Deeq waaye magacayga. Waxaan halkan ka sii wadanaynaa barnaamijka yaraa wacyigelinta. Maxay ahayd walaalayaalow? Waxaan nahay dad muslin ah, waxaan nahay dad Soomaali ah. Maxay ahayd baraha bulshada waan ku soo badannay. Marka maxay ahayd qof walba hadeertaan shaqay u noqotay siiba baraha maxay ahayd YouTube-ka. Marka jaanisyo badan naga banaan aan kala faa'iideysano qof walba walaalkiis wuxuu yaqaan qofka kale ugu faa'iideeyo oo ay wacyigelino oo maxay ahayd aan ka fikirno ilmaheena iyo guryaheena iyo maxay ahayd wadankeena iyo meel walba oo aan joognaba aan ku noolnahay inaan horumar iyo maxay ahayd akhlaaq wanaagsan iyo aan ka fikirno aan sameeyno oo kala faa'iideysano oo maxay ahayd aan ka fikirno wanaaga iyo khayrka ma wanaagsana inaan caafimaadka yaro Ilaahayna siiyay aan ku kibirno dad maanta caafimaad haysanin oo maxay ahayd aan neefsan karin oo maxay ahayd meel kasta ay noqotaba qof maxay ahayd qofba meeshii laga qabto meesha kale ay ka daran tahay. Marka haddii Ilaahay caafimaad ku siiyay oo lixaad ku siiyay haddana inaad ku kibirtid oo maxay ahayd aad u adeegsatid xumaan iyo alla ka fogaansho ma wanaagsano. Marka Ilaahay ka baqno Ilaahay loo soo fariisto ma fiicno ummadahana inay nala yaabaan ma ahan. Marka wanaag aan ku bedelno wanaag adoo heli kartid inaad xumaan u carartid ma fiicno. Ilaahayna laga baqdo adduunkan laba maalin waaye hala joojiyo xumaanta iyo aflagaadada oo wacyigelin oo kala faa'iideysana. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. oo maxay ahayd Soomaalideena ay sameynayeen dadka xumaanta wado inta wanaaga wadaan maasha Allah laakiin inta xumaanta wado maxay ahayd wax ummado kale intoo maanta meel inta isku soo fariistaan is aflagaadeynaayo isku mashquulsan ma jirto maanta wax maxay ahayd la isku aflagaadeeyo ama challenge lagu jiro ma jiro. Marka maxay ahayd dad aan is aqoonin oo weligood is arkin oo haddana waxaa arkaysaa lafta iska caynaya marka ma wanaagsano. Ilaahay laga baqo oo ilmihiina u baqda oo maxay ahayd qabrigiina iyo qiyaamihiina u baqda. Ilaahay aan ka cabsano walaalayaal oo aan kala faa'iideysano oo maxay ahayd qofkii maanta baraha bulshada soo galo oo soo fariista qof wax laga faa'iido ha noqdo oo wacyigelin iyo wanaag laga helo oo maxay ahayd laga ammaan helo. Marka maxay ahayd oo aan ismaqalno maxay ahayd wadankan horta wadamadan sharciga ka jiro qofkii maxay ahayd xad gudub iyo nafsadiisa iyo xumaan iyo sumcad dilid lala soo doontane sharciga ka jiro maxay ahayd sida wanaagsan oo maxay ahayd oo asagoone oo wax xun aan u bedelanin oo wanaagiisa ku dacwo karaa waa laga qabanaa. Marka ma ahan inaa maxay ahayd si jaahiliyad iyo maxay ahayd aflagaadi iyo loo soo fariisto ma fiicno ummadahana inay nala yaabaan ma ahan. Marka wanaag aan ku bedelno wanaag adoo heli kartid inaad xumaan u carartid ma fiicno. Ilaahayna laga baqdo adduunkan laba maalin waaye hala joojiyo xumaanta iyo aflagaadada oo wacyigelin oo kala faa'iideysana. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.